kulanti wacan u wanaagsan daawadayaal meel kasta daafaha dunida ka joogtaan halkani waa aragti media uga barateen inaan idiin soo tebino wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya iyo intiisa kale iyo waliba dhacdooyinka ugu xiisaha badan dunida inteeda kale. haddaba warbixinteena waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay Soomaalidii lagu eedeeyay inay lusadeen lacag gaadhaysa 250 milyan oo dalka Mareykanka kuwaas oo qaar ka mid ah maxkamadda horteeda ay ka qarteen. waxaa baryahanba socotay baadhis iyo dabagal lagu hayo dad Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay inay lusadeen lacag loogu talagalay in lagu quudiyo carruurta intii uu socday xanuunka corona. haddaba warar xasaasi ah ayaa ka soo kordhay dadkaasi qaar ka mid ah maanta maxkamadda la hor keenay markaasna qirtay dambigaasi inay galeen kuwaasoo ku cadaatay inay wax ka dhaceen lacagtaasi sidoo kalena qirtay 3 ka mid ah dadkii raashinka carruurta ee Minnesota dhacay isla markaana lusaday lacagtaasi ayaa qirtay inay dambigaasi galeen sidoo kalena qirtay inay lacagtaasi qaateen dambigana maxkamadda ay ku soo cadeysay ay qirteen isla markaana ogolaadeen inay dhaceen ama musuqmaasuqeen lacagta waxayna qirteen in dambigaasi ay galeen. wararka ayaa sheegay in dadkan ay dawladda ku wargelisay in haddii ay qirteen dambiga ay dawladdu u fududeen doonto ciqaabta ay mutaysan lahaayeen. warar hoose aan helin ayaa sheegaya in dawladda ay dadkaasi la shaqayn doonaan sidoo kalena ay cadeymo rasmi ah bixin doonaan maadaama uu dambigu ku cad yahay. dawladduna waxay ku wargelisay in haddii sida wax u jiraan ay ugu sheegaan isla markaana sharciga ay hor keenaan cadeymo badan in sharciga loo khafifin doono xadhig iyo ciqaab midda ay mudan yihiin. 3 qof ee maanta qirtay inay galeen dambiga ayaa kala ah 2 qof oo Oromo iyo waliba 1 qof oo Soomaali ah sida ay wararka ku sheegayaan. dadkan ayaa xogo iyo macluumaad badan ku saabsan arrinkaasi dawladda ku wareejiyay kuwaasoo dad badan oo hore loo xidhin hadda la soo qaban doono. 3 qof ayaa lagu kala magacaabaa Bakem Madrasa oo ah Oromo, Hanna Makarega oo isna ah Oromo iyo waliba Xadiis Axmed oo Soomaali ah. dhanka kale waxaa jira 2 qof oo kale oo ka shaqeynayay xafiiska aymi gudihiisa oo magacooda laga soo qaatay xarfo kaliya kuwaasoo la sheegay inay laamaha ammaanka ay la shaqeynayaan sidoo kalena wax kasta oo ka socday xafiiskaasi ay u sheegi doonaan. xaaladuna waa sii taraysaa marba marka kasii dambaysa waxayna yeelanaysaa weji cusub. dad badan oo kale ayaana soo bixi doona arrintaasi ku lug leh kuwaasi oo dhawaan la hor keeni doono maxkamadda waxaana cabsi xoogan soo wajahday cid kasta oo kiiskan ku lug lahayd mar haddii cadeymo badan iyo waliba markhaatiyo badan ay soo baxeen kuwaasoo la shaqayn doona dawladda Mareykanka sidoo kalena xogo iyo cadeymo badan oo ku saabsan dadka dhacay lacagtaasi la wadaagaya sidoo kalena maxkamadda horteeda ka qirtay inay dambigaasi qayb ka yihiin. waxaana hadda faraha kasii baxaya xaaladda maadaama dadka ka tirsanaa dadkaasi lacagaha quudinta ee carruurta ee cunay ay doonayaan inay ku maqraati furaan dad kale oo badan oo u xidhan kiiskaasi iyo kuwo kale oo lagu daba jiro kuwaasoo cadeymo badan la wadaagay hay'adda FBI-da ee Mareykanka oo kiiskan gacanta ku haysay. waxaana marba marka kasii dambaysa kiiskani lugta la sii galayaa Soomaali badan oo bulshada dhexdeeda saameyn ku leh halka hore loo xidhay kuwo badan oo caan ka ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka oo ay ka mid ahaayeen wariyaal, fanaaniin, waliba culimo iyo waliba ganacsato tiro badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo lagu eedeeyay inay lusadeen lacagtaasi ama musuqmaasuqeen. haddii ay 4 qof la sheegay inay maxkamadda horteeda ka cadeeyeen xogo badan oo ku saabsan kiiskan mar kale la soo xidhi doono dad kale oo badan iyadoona hore dad gaadhay 49 qof maxkamaddu soo xidhay kuwaasoo la sheegay inay lugta ugu weyn ku lahaayeen dhicista lacagtan oo gaadhaysa 250 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa hal sano lagu cunay kuwaasoo ay dadka qaatay la sheegay inay ka iibsadeen hanti iskugu jirta gawaari qaali iyo waliba guryo waaweyn ay ka dhisteen dalalka Turkiga iyo Kenya sida FBI-da Mareykanka xogo badan ku heshay kuna sheegtay arrintan ayaa haddii ay ku soo cadaato ama lagu helo dambigan ayaa waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa community-ga Soomaalida dalka Mareykanka haddii xogta FBI-da Mareykanka ay ku daba jirto ku cadaato Soomaalida kiiskan waxaana uu lugta la geli doonaa
dad badan oo siyaasadda Mareykanka saameyn ku leh. Dhowaan ayay ahayd markii warbaahinta Mareykanku ay qoreen warar sheegaya in Jamaal Cismaan oo ah siyaasi ka mid ah dowladda hoose ee Minnesota in xaaskiisa ay ka mid tahay dadkaas lacagtaasi cunay oo ay dad badan ka yaabisay. Arrintan ayaa walaac iyo baqdin ku abuurtay Soomaali badan oo saameyn ku dhex leh saaxadda siyaasadda Mareykanka. Sidoo kale waxay lugta la gashay culimo iyo weliba goobo muhiim Soomaalida u ah. Warar ayaa sheegaya in masaajidda ay ku jiraan goobaha lacagtan lagu qaatay, kuwaasoo sida la sheegay ciwaanadooda la isticmaalay. Haddii ay arrintani ku caddaato, waxaa gebi ahaanba ay dowladda la wareegi doontaa goobahaasi, kuwaasoo sida la sheegay la xaraashi doono. Kiiskan ayaa moodaa dabin iyo shirqool loo dhigay Soomaalida Mareykanka, maadaama ay Soomaalidu tahay bulsho Mareykanka dhexdiisa saameyn weyn ku leh, kuwaasoo ka dhex muuqda dalka Mareykanka. Hadday noqon lahayd siyaasadda, ganacsi iyo weliba arrimo kale, ayaa moodaa inay sharaf u dhac ku tahay bulshada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka. Dadka kiiskan loo haysto ayaa waxaa ka mid ah dad aan shaqayn oo waayeel ah, kuwaasoo dowladda Mareykanka ka qaata lacagaha howlgabka ah oo loogu talagalay, kuwaasoo akoomadooda ay dhex mareen lacaga gaadhaya dhowr boqol oo kun oo dollar. Wararka ayaa sheegaya in dadka aanay waxba ka ogeyn akoomadaasi la isticmaalay, kuwaasoo ay isticmaaleen faamiliyadooda ama qaar ka mid ah qaraabadooda. Arrintan ayaa Soomaalida cabsi ku abuurtay maadaama ay ku jiraan magacyada FBI-da ay faafisay dad lafdhabar u ah bulshada Soomaaliyeed ku nool dalka Mareykanka. Waxaana xiisadda ay kasii daraysaa marba marka kasii dambeysa, kuwaasoo lugta la sii galaysa Soomaali tiro badan oo dalka Mareykanka caan ka ah. Isku soo wada duuba, guud ahaan Soomaalida dalka Mareykanka ayaa sheegay in arrintan ay tahay arrin loo dhigay Soomaalida, islamarkaana la doonayo sumcadda Soomaalida in lagu weeqo ee dalkaasi Mareykanka. Waxaana la sheegayaa inay cabsi weyn soo wajahday qaar ka mid ah dadkii lagu tuhunsanaa kiiskaasi, kuwaasoo la sheegaya in haddii ay ku caddaadaan dembiyadani ay muteysan doonaan xabsi iyo weliba ciqaab dheer. Wararka kale aan helin ayaa sheegaya in dadkan maanta maxkamadda horteeda la keenay inay faafin doonaan islamarkaana siin doonaan dowladda cadeymo dheeraad ah, kuwaasoo la sheegay inay dad badan u sahli doonto in xabsiga ay liinta ku cabaan. Maxkamadda Mareykanka ayaa la filayaa in dhowaan lasoo taago Soomaali tiro badan, kuwaasoo lagu eedeynayo inay lug ku lahaayeen kiiskaasi.